kan waa deegaanka Seemada ee dhaca koonfurta degmada Jariiban waxa ka jira abaar baan haddii aad odayaasha waxgaradka deegaankaas la sheekaysatid sheekadu waa quus qaadan waa ah meeshaani waa Seemada Seemadana waxay ka tirsan tahay gobolka Mudug degmada Jariiban dhinaca qorrax u dhac waxay ka jirtaa waxayna u jirtaa 36 kiiloomitir weeraha culaysadii ugu badnaa oo xoolihii deegaamada kala duwan ka soo guuray Puntland ama haddii Itoobiya ama haddii Somaliland meel kasta ha ahaadee xoolihii dhulkii culayska badan u yimid baa meeshaan Seemada ka mid tahay wax badan baan miidiyaha ka hadalnay oo dadkaas culays soo wajahay awgiis waxa weeye dadkaas ama baahi biyood ha ahaato ama sabalayyo ka go'ay ha ahaato dad aad u fara badan oo qiyaastoodu arna tiro koobay run markaanu ka hadal laakiin aad u fara badan baa meeshaan la keenay websaydyada iyo miidiyahana waa ka arkayseen oo hadee wax badanna miidiyahan ka hadlaynay waa aad aragteen dadka wax yar baa ka guuray shidaalkiina waa ku soo adkaaday meelo kala duwan bayna joogeen oo aan biyo lahayn dhulkaas ay joogaan Seemada markii aan ka qiyaaso ilaa 25,000 dad lagu qiyaaso iyo haddii lahayd ma duleelkiisa meel ilaa 45 kiiloomitir u jidha ilaa iyo meel la yiraahdo haddii lahayd maxay ahayd Cadawilif ilaa iyo meesha la yiraahdo bal misla halka ka jidha culayska ugu badan meeshii lahayd bay ahayd wax badan baa warbaahinta ka hadalay dadka waxa weeye waxaysta oo Soomaaliyeed oo muslimka ah muslimiinta kale adduunka ku nool sheelaha dibadda haddii hay'adahan samafalka haddii wax badan baan u qaylino dadkaas walaalihooda oo baahan baan uga warbixinay dadkii mas'uuliyiinta meesha joogaadaan nahay oo aan awood u hayn wixii aanu meeshaas ku aragnay waxa kale isnaan markaan caga ku taagnay iskoolka Seemada oo 18 sano la soo gardaadinayay annaga baahi adag baan haysa iskuulkayaga burbur weeye haddaan waalidiin nahay waa burbur maanta wuxuu burbur u yahay warka badin mayo abaarana saameeyay annagoo awalba iska haraa ahayn oo aan waxaan ku haynay jirin meesha aniga hadda qaasaan markaan iska hadlo 7 ilmood baa gurigayga uga soo tagay 7 ilmood 2 ilmood baan diray talo maxaa ku bixisaa aan iraaha shanta kale waxba ma baran karo waayo silin uma hayo waxaan wax ku baran ma hayo balse shalay ayay ahayd markii uu maamulka degmada Jariiban u qaybiyay ilaa 500 oo kiis oo raashina deegaanada hoos yimaada degmada Jariiban shalay waan ka soo qaaday imise qoys baa ahaydeen 4 qoys oo reer boqol yahay qoliyaha ay u shaqo maxay ahaayeen gumasoor aye ya baamreexan laba reer baa la disay labada reer ba 14 u qaybsanaysan raashinkan 14 u qaybsan ya saxan weeye waxa daray in adeero macaan arag maanta lixqad buu ahaa galabta boota biyana si dadkii baa aqday iyaguna galabta boota biyana si tan hadana wariya ma bawata gabadhu qaad in adeer biyo dhaamiskii magaalada waxa kala hadlaysaa أو مرسل دوق حين كبير بالمرسل أتك نقاو ودي كذا مرسل بينا منه وصلت كمان عقبان بسيل هذا أفرت قوي شوية أفرت حاجاتك أنت عدل ما أدري marka waxa yeelaysan waxa yeelaysan warkaasna waa noosheeg hadda waxa ku jirana waa aragtaa galabta mulkaa dadka aan jecelahay inuu xelaana ku jiraan wax kasto inoo yimaadana wasaasay noqdeen sidaas kale noqdeen annagu dadka aan rabnaa inaan waxshaan ay wax gaaraan baa koow ka tahay warka hadda noo sheegtay marka waa tashanayna waa ilaa galabtay waa tashanayna ilaa galabta tashanayna ifafaalaha soo baxaya haddii gargaar biyo iyo cunto aan la helin dadka qaybtii waa quus maamulka Jariiban iyo kan gobolka uma taaghayaan balse kan Puntland haddii uusan fadhiid noqon qondada abaaruhu ma xumo sida uu sheegay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani